kalfadhii shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya waliba inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayadoona madasha ay gobjoog ahayeen saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda Soomaaliya bilowgay munaasabadan lagu furayay kalfadhigan caadi ahayn ayaa hobolada qaranka ee Waabari waxay ku soo bandhigeen heese wadani waliba heese ay ku gubaabunayaan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya isagoona sharaxaad kooban ka bixiyay arrimaha badan ee sugayay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo aan caadiga ahayd inaan ka baxno xilliga kan ama kalfadhiga kani waa ka duwan yahay kuwii hore aad buu uga duwan yahay kuwii hore waxaan u baahannahay habeen iyo maalin aan shaqayno guddiga joogtada fadhigiisa 17kii bisha tan wuxuu go'aamiyey in guddigii loo gudbiyo hindise sharci uusan haysan karin muddo 10 beri ka badan waa in uu habeen iyo maalin shaqeeyaa wixii fursadii tasjiilaad ah guddoonka ka taqaana waa lala fulinaa laakiin maqnaasho ma jirto xildhibaanada maqan waxaan uga digayaa xildhibaanada maqnaashooda badan in heer hoosaadka bilxaq loo fulin doono cidna aan looga sariigan doonin aan la fulin doono marka taa meel ayaad ku qoranaysaan inaan u fulino aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka mudane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed inuu ku gudbo xilkiisa dastuuriga inoo furo kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka sagaalada Soomaaliya sida dastuurku uu qabo baarlamaanka Soomaaliya kalfadhigiisa shanaad ayaa waxaa furay madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoona sheegay madaxweynaha inuu aad ugu faraxsan yahay inuu furo kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana sidoo kale tacsi u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya waxaa farxad iyo sharaf weyn ii ah inaan maanta furo kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan ku bilaabo tacsi aan u dirayno golaha shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen xildhibaanada ka tirsanaa golaha ee ku baxay gacanta oo kooxaha nabad iyo nolol diidka ah xilliga la soo dhaafay aad iyo aad ayaan idinku bogaadinayaa waxaan leeyahay hambalyo waxaanan halkaas usoo gabagabeynayaa ummaddaydii waxaanan leeyahay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa furaya baarlamaankan waa baarlamaanka sagaalaad ee yeesho dalka Soomaaliya ayaa waxaa sugaya howlo badan oo aad u fara badan waxaana kamid ah dhisidda dastuurka waxbarashada dalka dhisidda dastuurka maxkamadda ee dowladda Soomaaliya ayadoona baarlamaanka Soomaaliya laga sugay inuu qabto howlahaasi oo dhan waxaana baarlamaanka Soomaaliya u harsan muddo ka yar 2 sano Maxamed Ibrahim Maxamed Royal TV Muqdisho